wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo waraysi kooban bixiyay ayaa sheegay in uu furmayo kabka miisaaniyadda ee dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ay siiyaan dowladda oo in muddo aba go'naa kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaatay madaxda hay'adaha dhaqaalaha adduunka. wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa dowladda federaalka, bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ayaa suuro gelinaysa inay soo daayaan wixii loo baahnaa ee markii hore la hakiyay. madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxda wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda dhaqaalaha adduunka ayaa ka wada hadlay howlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo taageerada bangiga dhexe ee Soomaaliya. barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ayaa soo maray heerar kala duwan, waxa uuna haatan maraya heer gabagaba sida uu sharaxay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. sida ka warqabtaan waxa madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmayay hay'adaha caalamka ee deeqda bixiya maalmihiina soo dhaafay. sidaad ogtihiin hay-adahaasi waa hay'ado aad Soomaaliya ula soo shaqeeyay weye. waxaa ka mid a hay-adda lacagta adduunka, bangiga adduunka iyo African Development Bank ama banka horumarinta Afrika. saddexdaasoo la isku daray ayaa wax weyn inala soo qabtay intaan deyn cafintan wadnay. intii ka horreysana runtii iyaga gacankana soo qabtay, haba yaraata waxay markayna siinayeen. waxay soo raaceen wadannada bilateralka la yidhahdo, iyaguna caawinaya soo raaceen, laakiin iyagu way ka luxdanayeen. iyagu intii markaa doorashada la waday, banankaasi waxa ay hakiyeen dhaqaalihii ayna siinayeen bay hakiyeen, iyagoo markaa inagu tirtirsiinayay inaan doorashada gallo ay soo dhammaato. ilaahay mahaddii doorashadii bisha 15 bay soo dhammaatay. waxaa markaa heshiisku ahaa mar la yaala marka madaxweyne cusub la doorto inay la falgalaan, la fadhiistaan, ajendihiisa iyo aragtidiisa iyo programkiisa ay eegaan, oo ay dabeetana inay soo noqonayaan in kale inay xariga ka furayaan dhaqaalihii siinayeen in kale ay isku dayaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha inuu la kulmay bisha 17 oo 24 saacadood ka yareed markii madaxweynaha la doortay, inuu la kulmay World Bank ama banka adduunka. ay si wanaagsan u sheekaysteen, weydiiyeen waxay weydiinayaan madaxweynaha iyo banka adduunka. ay isku afkarteen shaqadii ay soo wadeen in la sii wadi doono, deyn cafintii halkeedii kasii socon doonto, kuna booriyey inay wixii dhaqaalihii noo furan. waxaa ku xigay bishii 18 oo IMF tahayd. IMF-tu ama hay'adda lacagta adduunyadu waxay kaga duwan tahay kuwa kale, iyadu jidkay tusaysa. hadday Soomaaliya jidka ka baydho, way ka baydheenay bay odhanaysaa. markaasaa qof waliba wixiisi joojisanaya. laakiin hadday iyagu yidhaahdaan jidkii Soomaaliya way ku jirtaa, way taagantahay, hadday yidhahdaan way socdaan, hadday yidhahdaan markaasaa qof waliba dhegeysanaya. marka iyaga laftooduna bishii 18 bay la kulmeen, waxaanay soo saareen baaq ama press release bay soo saareen shalay. waana aragteen sida inooga hadleen iyo in ay heshiis la gaadheen madaxweynaha in arrintaasi soconayso. maanta daqiiqada ka hor oo ay bishu tahay 21, waxaa madaxweynuhu la soo gunaanaday oo la soo dhiraandhiriyey wadahadalkii African Development Bank. asaguna hadduu noo dhammaaday, iyaguna waxay aad ugu qanacsan yihiin. waliba iyagoo dhegaystay wixii World Bank yidhi maalintii hore, dhegaystay IMF-tu waxay tidhi, akhriyay press release-kii bay maanta yimaadeen. iyaguna waxay dalkan u qaban doonaan iyo habkay noola falgeli doonaan ayay madaxweynaha uga warrameen. waxa aan aad iyo aad ugu farxansanahay inay soo gaarsiiyo fariinta ah Soomaaliya way socotay, si fiican bay u socotay. sidee u soo socotay iyo si kasii wanaagsan ayaa madaxweynuhu ku ballan qaaday inaan arrintaa ula socon doono, iyagoo keliya maahay international community-ga si dalkan hore ugu maro.